الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كتابكم عمدة الأحكام شرحي سنة وتيسير العلام. sidaa darteed horey ayaan u soo sheegnay halkudhigiisa iyo sida uu u qoran yahay iyo haabkiisii iyo qaab wanaagiisa. waxaan gelaynaa oo aan bilaabaynaa kitaabu tahaarati. tahaaradii ayuu kitaab u yahay. can cumar bn alkhadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul, asagoo dhahaya inama alacmaalu binniyaat. inamaa waa xasrigaa la yidhaahdaayo wax kale oo jiraayi ma jiree camalada oo dhan waa niyada. wa fii riwaayatin werinkay ahayd binniyati waa niyo. wa inamaa likulli imri'in shaqsi kastaana maa nawaa wixii uu niyeystay ayuu leeyahay. qof walbaa wixii uu niyeystuu leeyahay. faman kaanat qofkay ahaatay hijratuhu hijradiisa ila allahi ilaahay xaggiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa, fa hijratuhu ka hijradiisa ila allahi wa rasuulihi waa ilaahay iyo rasuulkiisa xaggoodo diintii uu nusraynayay nebiga iyo ilaahay dartii uu u hijrooday ayaa looga abaalgudayaa. waman kaanat qofkiisa ay ahaato hijratuhu hijradiisa ilaa dunya adduunyo yusiibuhaa inuu helo aw imra'atin amanaad oo yatasawajuha uu markaa guursanayo, fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi kaa hijradiisana wixii uu u hijrooduu leeyahayo ilaahay iyo rasuulkiisa dartood uma bixin. diintooda inuu u kaalmeeyo uma hijroonin. dar alla uma bixine adduunyo iyo aw imra'atin yatasawajaha ayuu u baxay, yatasawajuha fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi wixii uu u hijrooday ayuu leeyahay. taasna in badan iyo xadiiska ayaan markaa soo marnay. macaanidiisana dadku aad bay u og yihiin. wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala allahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laa yaqbalu allahu ilaahay ma aqbala salaata axadikum axadkii salaadiisa idaa axdatha markuu xadafo, waa markii waysadu ka jabtaa loola jeedaa. ilaahay ma aqbalayo hadduu tukado xataa yatawada'a ilaa uu weyse qaato. ilaa uu ka soo weyse qaadanayo ilaahay ma ka aqbalayo salaad axad weysadu ay ka jabtay. axdafka wax waa ku soo cusboonaaday, arrin cusub baa u timid, ilaahay kama aqbalo. laa yaqaahu ilaahay ka aqbali maayo. laa yaqbalu allaha salaata axadikum axadkiin salaadiisa ilaahay ma aqbalo idaa axdatha hadduu xadafo wax ay ku soo diriyaan weysadu ay ka jabto xataa yatawada'a ilaa uu weyse qaato. wa can cabdillaahi bni camr bni caas iyo wa abi hurayra iyo wa caaisha saddexdoodaba qaaluu waxay dhaheen qaala rasuuluullahi, rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, weylun halaag wuxuu u sugnaaday lilacqaabi cirba xaggooda, weylkaasoo min annaari naarta xaggeeda ka ah. maalin maalmaha ka mid ah ayay saxaabadu safar aadeen, nebigana wuu la socday. nebigii baa naga dib dhacay bay dhaheen ayadoo ay salaadiina na soo haleeshay oo ay salaadiina soo dabooshay. waxaan gudagalnay inaan weyse qaadanayno oo cirbaheena iyo lugaha aan masaxayno. rasuulkaan naga daba yimid, wuxuu ku qayliyey codkiisa kii u dheeraa 3 jeer ama 2 jeer. wuxuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar, weylun lilacqaabi min annaar, weylun lilacqaabi min annaari. naarta wiil ka sugnaaday xaggeeda cirbay u sugnaadeen. waa cirbaha aan si fiican loo dhaqin, biyahana aan la gaarsiinin. waayo cirbaha meesha dambe lugaha gomadooda waa meesha awsaaqdii wasaxdu ay ugu badan tahay, ayna markaa ku aruuraan. wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay baa qaala wuxuu yidhi idaa tawada'a
hadduu weyse qaato axadkiina hadduu qaadan falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa'an biyo ha yeelo, sankiisa biyo ha geliyo, uma kabacdina liyantafir ha soo siimiyo. biyihii u kusandaasou sanka ku jiiday bannaanka u soo bixiyo ha soo bixiyo. waman istajmara qofkii dhagxaan ku istanjoonayana falyutir ha witriyo, qofkii dhagxaan ku istanjoonayana witir ha ka dhigo. wain istayqada hadduu kaco axadukum midkiin min nawmi hurdadiisana falyaqsil ha dhaqo yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhilahumaa ingelinin fi linaa'i weelka dhexdiisao biyaha 3 mar. 3 mar bannaanka ha ku dhaqo. fa ina axadakum midkiin laa yadrii ma oga ayna baatat yaduhu meeshay gacantiisu bariday, meeshay xalay gacantiisa seexatay ma ogee gacmihiisa intuusan weelka biyaha gelinin 3 mar bannaanka ha ku dhaqo. rasuulku wuxuu leeyahay sida abuu hurayra tilmaamayo, idaa tawada'a axadukum axadkii markuu weyse qaadanayo falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa'an biyo, uma liyantafir kadibna ha soo siimiyo oo markuu ku jiido sanka biyaha ha soo bixiyo. waman istajmara qofkii dhagxaan ku istanjoonayana falyutir ha witriyo. marka ugu horaysa waa 3 dhagaxa lagu bilaabaa. 1 iyo 2 xataa haddii nijaasada ku baaba'do waa inuu saddexeeyo. haddii ku baabi'ayeysa 5 buu gaarsiinayaa, waa afaraynaya. 4 haddii ku baaba'do xataa wuu shanayna oo mar walba inay witir ahaato. haddii axadkiin uu ka soo kaco hurdadiisana gacmihiisa ha dhaqo intuusan weelka gelinin ka hor 3 mar. waayo fa ina axadakum midkiin laa yadrii ma oga ayna meeshii baatat ay bariday yadahu gacantiisa. wa fii lafdi limuslim falyastanshiq ha ku sandaarsado biman kharayhi sanqareeradiisa waa sandilka min almaa'i biyaha sanka ha ku jiido ha ku sandaarsado. wa fii lafdin wuxuu ahaa man tawada'a qofkii weyse qaadanaya falyastanshiq ha sandaarsado, qofkii weyse qaadanaya ha sandaarsado. wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabiga, laa yabuulanna yuusan kaadimin oo yuusan ku kaadimin axadukum midkiin fi lmaa'i daa'imi biyo fadhiya, biyo daa'im ah yuusan ku kaadimin. alladii laa yajrii aan soconayn. alladii laa yajrii daa'imkay tafsiir u tahay. biyaha hadday daa'imiin mana soconayaan, laakiin laa yajrii tafsiir bay u tahay daa'im. uma yaqtasilu kadibna uu ku qubaysto minhu biyihii xaggiisa, inuu biyihii xaggooda ku qubaysta. walimuslim waxaa u sugnaa laa yaqtasilu yuusan ku qubaysanin axadukum midkiin fi lmaa'i daa'imi biyo daa'im ah oo fadhiya wahuwa junubun asagoo janaabo qaba. amaa biyaha webiga iyo biyaha badda dhib ma laha oo qofku hadduu rabo inuu janaabo kaga qubaysto dhex galo way ka ansaxaysaa. amaa biyuhu hadday daa'im yihiin inuu dhex galaa mamnuuca. wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi, idaa shariba alkalbu eygu hadduu ka cabo fii inaa'i axadikum axadkiina weelkiisa falyaqsilhu 7 mar ha dhaqo. walimuslim waxaa u sugnaa uulaahunna midda horena bituraabi caraha ka dhigo, midda kalena caraha ka dhigo. walahu waxaa u sugnaa fii xadiidi cabdullaahi bni mugafalin ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi, idaa walaqa hadduu afka geliyo alkalbu eyga fi linaa'i weelka faqsiluuhu dhaqa 7 jeer. wacafiruuhu ciideeya oo ciidku dhaqa. athaaminata marka 8aadna bituraabi cara ka dhiga. haddii wax ku jireenna daadiya. axaadiis baa ku dartay. xadiidku wuxuu tilmaamaa eyga nijaasadiisa muqallad inay tahay aadna u xoog badan tahay. abi hurayra wuxuu leeyahy rasuulku wuxuu dhahay, haddii uu kalbiga iyo eyga ka cabo weelka axadkiin 7 jeer ha dhaqo. midda koowaadna ciid ha ka dhigo. cabdullaahi bni mugafal xadiidkiisa wuxuu leeyahay hadduu carab ka geliyo
ama afka uu geliyo eeya weel idinka aad leedihiin 7 jeer dhaqa, midda 8aadna ciid ka dhiga. see lagu jamciyaa labada xadiis? 7 jeeraa la dhaqayaa, mid ka mid ahna ciid baa laga dhigaa. midda ciidda laga dhigayuu biyaha mar laysku daraa. marka uu leeyahay xadiidka 7 jeer ha la dhaqo oo midda koowaad carro ay tahay, waxaa laga wadaa waa marka halhal loo tiriyo, ciidda iyo biyahana laysku daro oo markaa tiro ahaan saa markaa loo tiriyo. mar koowaadoo ciid ah biyo ah, mar labaadoo biyo ah, mar saddexaadoo biyaha iyo ciidda laysku daro xabad lagu tiriyo. saa haddii loo xisaabo waa 7. marka biyaha iyo ciidda laysku daro haddii la kala tiriyana 8 bay markaa noqonaysaa. marka saasaa labada xadiis loo jamciyaayo. walahu fii xadiidi cabdullaahi bni mugafarin ana rasuula allahi qaal idaa walaqa haddii uu afka geliyo alkalbu eya fi linaa'i weelka fagsiluuhu 7 jeer dhaqa. 7 waa 7dii biyaha ahaa. xadiidkaa 7 tilmaamay macal ciidana biyaha iyo ciidda halka mar oo laysku dhex daray iyo hal xabba xisaabeed 7bay noqotay. haddii ciiddii iyo biyihii laysku daray, biyahana gooni loo tiriyo, ciiddana gooni loo tiriyo, wacafiruuhu 8 bituraabi, saasay markaa noqonaysaa oo xadiidka markaa loo jamcinayaa. wa can xumraana mawla cuhmaan ibni cafaan. meesha haynoo joogto. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaana wa tacaala aclam.